بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي قاميل البودوني ذي كجوكتان وايدين سلامي إن سلام كدي ما أنت ماشي وحنكو ذا سيدا أركي سامبا إن وسجايد أما صلي صلاة لوجدو كذو عروفتا ما شاء الله dadka caruurta yaryar sida salaada loo dukada aanan aqoonin salaad in la baro waajibka nagu tahay ayay faa'iido u yahay saligan waxaana jeclaystay maanta inaan idin la wadaago saligan aniga hadda ayaan dalbaday ma sha Allah tabaarakallah waxaan ilaahay subhanahu qaadir ka rajeynayaa inaad natiijadiisa aan gaaro aniga iyo inta nala midka ahba ku hamisa sidee awlaadooda salaada u bari lahayd waana ilaahay wuxuu waajib nooga dhigay inaan awlaada salaada la baro xilliga ugu macquulsan in salaada sida ay u dukan lahaayeen in la baro ana waxaan jeclaystay maadaama saligan helay ina idinkana idin la share gareeyo si aad uga faa'iideysataan inta aanan helin faa'iidadan oo kaleeto waxaana boqolkiiba boqol hubaal ah inuu faa'iido noo yahay marka waxaan jeclaystay inaan aniga gurigeyga ka bilaabo oo awlaadeeda aan sida salaada u dukan lahaayeen aanba insha Allah ilaahay subhanahu qaadir ayaan ka rajeynayaa inaan ku guuleysto idinkana ila faa'iideysta saligan magaciisa waxaa la dhahaa My Salamaad waxaana ka dalbaday website-ka internetka googlaha ayaad My Salamaad galinaysaa kadibna sidaa u dabaleheed asaga ayaa ku tusaayo waxaa kaloo kuugu imaanaya 2 maalin ilaa 3 maalin aniga 3 maalin ayuu igu imaaday meel walba oo dunida ka joogtiin waxaan in laga heli karo oo aadna dalban kartaan oo na idin imaan doono saliga waa kana sida aragtaanba waa kaasa waan soo furay sidaas ayuu eg yahay waa aragtaan meeshii caruurta lugaha saari lahayd waaye halkan meeshii jilbaha saaran lahaayeen waaye waa kaasa gacmaha sanka meeshii dhigi lahaayeen iyo madax sujuuda meeshii saari lahaayeen wuxuu leeyahay sida arkaysaanba samiicad waxaa ku taalo samiicadan waxaa la gelinayaa 3 xabo battery ayaan geliyay waa kaasa battery ayaan geliyay asagana ma ahan maro waa ba waxba biyo ma gaarayo waxba ciyaalka ma nijaaseynayaan waa markii as dhahdid ciyaalka lugahooda qoyan ayay ku istaageen waad maran kartaa maro yaro nadiif ayaa marinaysaa muhiimadani waa in ciyaalka sideeba quraanka ugu baranayaan marka sida arkaysaanba waxa ku taalo sida unugu u istaagi lahaa sida u rukuucan lahaa ataxiyaadki markuu akhrin lahaa maxaa la dhahaye quraankii wax walba ma sha Allah intii salaada muhiimadii ahayd way ku jirtaa hadda waxaan rabaa inaan shido waan shidayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ساسيو ku bilaabaya kadibna unuga markii labada lugood oo halka saaro wuxuu bilaabayaa inuu markaas hadii aad dukanaysid duhur hadii aad dukanaysid waa arkaysan rajinaya fajr duhur asr maghrib isha salaadii oo dhan ma sha Allah way ku jiraan sida waa kaasa hadii aan lugaha uu halkaas unuga saaro wuxuu bilaabayaa inuu akhriyo ma sha Allah faatixadii nabribina sida adiga salaada unuga u dukan lahaay ayuu astaantii dhan adiga waxa ka saxaysaa sida unuga u istaagi lahaay iyo qaabkii ay ka saxaysaa sida arkaysaanba halkaas ayuu start halkaas waa markuu unuga lugaha saarabo way bilaabanaysaa saasay u bilaabanaysaa kadib wudu adalah cara kita membersihkan diri sebelum saas sholat waa kaasa hadda Allahumma rabb hadhihi ma sha Allah dacwada ducada ayuu akhrinayaa ma sha Allah tabaarakallah marka meel walba oo taabato Allahu akbar arkaysaa الحمد لله
maasha allah tabaarakallah. Marka sida arkaysaanbo sidaas ayuu cunugii markuu istaago sidaas ayuu quraankii ugu saxayaa ducooyinkii maasha allah rukuucdii adiga sujuudii quraanka maasha allah tabaarakallah salaadii intii loogu talagalay oo kaamil ah ayaa saligaas ku diyaarsan. marka maasha allah tabaarakallah waxaa jeclaystay aniga maadaama helay alxamdulillah nimcada ilaahay uu badiyay aniga waxaas dhahay la faa'iid la sheer garay asxaabtaada walaalahaada maasha allah meel bay joogaan dad badan oo u baahan ayaa jiro oo kuuna duceyn doonaan. marka waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago asxaabteeda qaaliga. saliga waa kaasa magaciisana waa kaasa waxaa la dhahaa maysala qadka gala insha allah ka dalbada. ma aqaani dukaamada inay hayaan aniga ma ku dambaabi kari aniga qadka ayaan ka dalbaday. wuxuu kaloo wataa idinka ilooway buugtaas ayuu wataa waxaa ku qoran ingiriis ayaa ku qoran haddii ilmahaada ingiriis yaqaanaan maasha allah ayaga ayaa aqrinayaba waa perfect. marka waa kaasa insha allah idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan asxaabteeda qaaliga. waan jeclaystay 100% inaa idin faa'iideeyo waadna ku mahadsantihiin daawashadiina insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. please hadii aad ka heshid videoga aan soo geliyo like comment share kana sii share garay si ay asxaabta kale ee u fiirsato videogan. dad badan oo waxaa jiro u baahan aanan ogeyn si ay u helaan faa'iidadan oo kale si ay walaalaheena insha allah la sii share gareeya. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina meel badalad ka joogtaan. waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.